كلجك برشدة علوم تعافيماتك ماما أمينو waxaan rabaa kelmadda iskuulada waxa ku hadlaya afka iskuulada magaalada Muqdisho ustaadkeena qaaliga la jannolin waayay ustaad Saalax Cabduqaadir Sheekh Mukhtaar saabiskiisa dhawaynta soorida inta waa xaqiini ustaado soo dhawow alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah maamulka howlwadeennada college Maama Amina Health Science marti sharafta kala duwan kaamiramanada dhammaan dhalinyarada social media caanka ka waxa idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib run ahaantii aad ugu faraxsanahay aniga ku hadlaaya magaca iskuulada hortinaan inaan soo istaago maanta kana qayb galo xafladda lagu guddoonsiinayo tartan aqooneedkii caafimaadka quseeyay ee bishii barakeysneed ee Ramadaan ay soo aawuleen howlwadeennada college Maama Amina Health Science waxaa rabaa hadal jeedinteedii inaan ku soo koobo saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad oo ah madasha maanta aynu fadhino waxaynu iskaan keenay oo ah tartan labo waxaa rabaa inaan maaragtaa la dardaarmo ardayda dhigata college Maama Amina Health Science saddex waxaa rabaa inaan dardaaran muhiim ah siiyo howlwadeennada har iyo habeen u taagan ummadda Soomaaliyeed inay ka dhisaan cilmiga caafimaadka tartan waa laga sheekeynaa haddii la yiraahdo waa halkan lagu soo koobi kara ma ahan hal saac iyo laba saac lagu sheekeyn kara ma ahan cilmiga la baranaya oo maarta wuxuu u yahay laf dhabar tartan la'aantii xitaa ardayga inuu buuga uu fiirna xitaa maarta lama ahan fikradii ka dambeeyay in tartan caafimaad maarta la qabto runtii waa fikrad loo baahnaa allahana barakeeyo allahana maarta u waasiciyo qulubtoodii howlwadeennada college Maama Amina Health Science tartanka siisa oo faa'iidana waa uu leeyahay faa'iido darana waa uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waxa waaye ardayga asaga la tartamaysa haddii la yiraahdo xaqiiq waa la og yahay inuu xil weyn u saarayo casharada iyo buugaagtana in badan uu daraasaynayo faa'iido darada uu leeyahay tartanka wuxuu abuuraa inta badan khilaaf qolada isa soo horjeeda qoladii nasiibka uu saaciday oo maarta guuleysata ma aha qolada laga guuleysta markasta waxa ku imaanaya nijab intaas yar uu leeyahay oo faa'iido dara dhanka iyo ardayda maanta ina keentay halkan dhamaanteena maarta wicitaankeena waxaan maamulkoodina u soo ajiibnay waxaan leeyahay guuleystayaasha iyo loo guuleystayaasha intaba dadaal iyo juhud dheeriya soo sameeyeen meeshina ka sii ambaqaada dadaalkiina sii wada college-ka meesha uu maanta u taagan yahay dadka ka sii ambaqaadi lahaa ama arta ka sii daadiin lahaa waa adinka college ama goob waxbarasho markii laga hadlayo waxa sare u qaadi kara ardadoodii waa laba si ay kor u qaadi karaan qaybta koowaad waxa waaye in asaagoodii cilmiga muhiimka ah ee macallimiintoodii ku shaqeeyaan ugu sheekeeyaan saasna college-ka kaga soo diiwaan galiyaan qodobka labaad ee maarta college-koodii sare ugu qaadi karaan waxa waaye college-ka dabcan waxa uu leeyahay page u gaar uu leeyahay in badan xitaa aniga kala socday tartamada Ramadaankan live-ka loo soo galay ugu yaraan haddii inta adigu kugu xiran social media ama Facebook oo aa u share gareyso gruubo badan oo xitaa jira oo si share gareyso magaca college-ka meesha hadda uu taagan yahay waxa macquul ah inuu ka sii saramaro qodobka saddexaad agaasinka iyo maamulka iyo howlwadeennada dhammaan ee college-ka daaha ka qaaday har iyo habeenna u taagan in cilmiga caafimaadka wixii karaankoodii ah ee maarta ku samata bixiyaan ardayda Soomaaliyeed waxaan leeyahay
shalay meeshii uu taagnaa college-ka maanta ma taagno shalay haddii hal xarun uu ahaa maanta wuxuu taagan yahay 3 xarun magaalada muqdisho oo 2 goobood ah iyo maaragta afgooye oo 1 goob ah dadaalkaas dheeriga ah dadkii soo sameeyay berina in meel ka sii fog ay gaarsiiyaan waxa waa inay tamaarta la tahay lama ahan waa la sii gaarsiin karaa waliba waxaan u rajaynaynaa inay sii gaarsiiyaan maanta college uu taagan yahay Mama Amina University inay sii gaarsiiyaan oo sii rajaynaynaa insha Allah inaga ka school tusma ahaan har iyo habeen waxa u taagannahay wixii tala iyo tusaale iyo marketing inta maarta in la dul taagannahay waana soo dhaweyn doonaa insha Allah waqtigu aad inoo kulaalaya awgi ما يذكرون ديرانا يا هذا الكيجا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته